كان كو إسقال اللغة كسر حبحضية ولهذا ونمن مر وحكا قريبا وحيت المامين لغة الصومالية إن كبضا بقول كيب الصدن إن أف عربيته كيلومتر كودن كالصومالية وكفر ديو وحالو قياسا إنو يهي صدح بقول إيو كونتون كون أو إسكواير ودن كالصومالية انت هذا اللي يقاني جمهورية دان كهضينا طبعا حرتها dadkaasi sidaan sheegnay waxay ku yaalaan meesha la yiraahdo geeska Afrika oo u dhaxeeya dhowr dawlo Ethiopia Kenya iyo hadii aan Djibouti ka soo qaadnay inay tahay wadan curfiga adduunka wadan kale aan Soomaali ahayn ama juqraafi ahaan wadan aan jumhuuriyadda ka tirsanayn intaasi waa qeexista wadanka Soomaaliya la yiraahdo in uu fikrad ka qaato qofkii yaqaan iyo qofkaan aqoonba taariikhda ummadda Soomaaliyeed goormay ka soo bilaabataa طبعا waxaa jira taariikho aan waxba nooga qornayn ama aanu kullayba aan ka helin taariikh ummadda Soomaaliyeed oo islaamka ka hor ah haddii aad fiiriso dadka wax ka qorayna in badan waa dad isku kalifay inay raadiyaan bal waxa la isku haystaa magacani inuu jiray Soomaali ah islaamka ka hor laakiin dadka wax ka qoray islaamka ka hor waxba uma noqonin ahmiyad weyn ma siinin taariikhdaas inta dadka wax ka qoray baan fiiriyay Soomaaliya islaamka ka hor waa dad raadinaya in ay Soomaalida u helaan meelan islaamka ahayn يعني هذي دتك وحكا قرأ إسلام ككهر صومالي أي هان لها يندد إسكداع واحد بدن بلغة سو قادن كاري لها دتك أبدنا وحكا قرأ صومالي إسلام ككهر وانمان لا هذا معهد أفريقيا وفرنسيس كويا على باريس وانمان بدنا تكتير الرسم مالها دكاتره الرسم مالها كشقيان يا وحكا قرأ كل يوم مركا قاعد في رسو جهوين كلا وشقيان وواحد رادينيا صومالي ده إن لغو حر دين إسلام كتو أنا هين سيدا درت مركا أي كهلايان waxa ka hadlayaan Soomaalida diinteedu maxay ahayd markaas mid wuxuu leeyahay waaq baa la dhihi jiray oo maxay yeelay markay ishabaarayaan waxay dhahaan waaq waxa sax kugu dhaco mid wuxuu leeyahay Soomaalida ilaaheedu wuxuu ahaa hooyaalay maxay yeelay markay gabyayaan wuxuu yiri hooyaalay ku bilaabaan dad marka inta badan dan kale taariikhda Soomaalida yaa wax ka qoray waqtiga isaga ah marka runtii ahmiyad badan ma siinin waxaan ka soo bilaabay waqtiga islaamku soo galay Soomaaliya intaasaan si cad dad wax uga qoray daacadnimana wax uga qoray aanan kulleeyba helay dadka Soomaaliyeed diinta islaamku marka ay soo gaadhay ma jirin dad la yiraahdo Soomaali oo gaar u degan oo dawlad gaar ah waxa jiray shacab gaala ah oo deganaa geeska Afrika ayna madax u ahay dawlad loo yaqaan al-Habasha oo uu ka tali jiray boqor la yiraahdo Najaashi oo markii dambe islaamay radiyallahu anhu ninkaas Najaashi ah waqtigiisii yu islaamku yimid geeska Afrika shucuubtuna markaa ma kala socnayn oo Eritrean iyo Ethiopian iyo Soomaali iyo Djiboutian iyo uma kala socnayn shucuub waxay ahayd mandiqada daga wax dawla ana waxa ka jira xabad ama wadankan hadda Ethiopia loo yaqaan marka waxaynu qayb ka ahayn waqtiga iyada diintii soo gashay geeska Afrika shucuubtii deganeed baan qayb ka ahayn nimanka wax ka qoray culimada wax ka qortay waxay u qaybiyeen islaamka soo gaaristiisii iyo faafistiisii way kala duwaneed soo gaarista geeska Afrika oo islaamku soo gaaray waxay ahayd saxaabadii markay ka soo hijroodeen Quraysh koox saxaabada kamida oo Maka lagu dhibay oo Nabigu sallallahu alayhi wa sallam u hijrooda Xabasha waxa jira malik aan agtiisa waxba lagu dulminin yaa waxa soo baxday bictha ama koox uu madax ka yahay ninka la Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu oo nabigeena adeerkiya kooxdaas marka iyagoo qaxooti ay yimid wadanka lana soo dhaweeyay lana dajiyay taasi waxa ahayd marka soo gaarisu islaamku soo gaaray qaaradan una islaamay madaxweynihii wadankaas marka ka talinayo Najaashi la yiraahdo laakiin islaamku marka intishaar iyo fidis muuna qaadanin gaar ahaan xeebaha Soomaaliya waxay diinta islaamku si la dhihi karo faafid rasmi ah ay u qaadatay waqtigii dawladii la dhihi jiray dawlad Umayya ama dawlad Dimashq magaalo madaxdeedu ahayd oo islaam ahayd oo loo yaqaan dawladii Umayyiinta dib wuxuu naga haystaa hadaan ahay dadkeena muslimiinta Soomaaliyeed taariikhda islaamka waa nagu yartay akhriskeedu marka dadkeena markaan leenahay dawla Umayya ama dawla Cabbaasiya waxba kama garanayaan laakiin hadaan uga sheekayno dagaalkii labaad ee adduunyada iyo Hitler iyo ilbaxnimada hore Greega iyo way garanayaan oo iskuulada ku soo qaateen marka waxa jirtay dawlad la jiray dawla Umayya oo dhacday qarnigii hore ee hijriga ahayd تقريبا تاريخي 90 iyo dhowr markay hijradu ahayd dawladdaas waqtigeedii buu islaamku u soo gudbay Soomaaliya xeebaheeda gaar ahaan dawladda markay sii dhacay yaa waxa soo qaxay qoysaskii boqortooyada ahaa ee ka talin jiray Dimashq koox badan oo kamid ah marka waxa la yiraahdaa meelaha aad uga soo degan waxa kamid ahaa dekedan Zaylac oo marka isu bedeshay inay noqoto caasimadda diiniga ah ee geeska Afrika ay dacwad uga fido oo quraankii iyo fiqigii iyo xadiidkii iyo aad loogu baran jiray kadibna waxa ka aasaasmay Soomaaliya magaalooyin anjada dawlooyin yar yar oo lagu magacaabo imaaradaha islaamka oo ugu weyneed imaaradda Zaylac imaaradahaas waxa ahayd runtii boqortooyooyin ama madaxtooyooyin islaam oo aad xoog u leh laakiin diinta islaamka wax ku dhaqda luqada rasmiga ee dawladda lagu maamulana waxa ahayd luqada carabiga imaarooyinka iyaga marka laga hadlayo markii dambe waxay gaadheen ilaa 7 boqortooyo oo islaam ah marka Soomaaliya say u dhantahayba waxay isu bedeshay wadan islaama oo ay ka taliyaan dawlooyin islaama
oo kala xoog badan laakiin muddo waxa ugu xoog badnayd imaarada la yiraahdo imaaratu Zaylac oo runtii dadka wax aqriyay ay yaqaanaan in dad badan oo culimada ka soo baxeen waxa kamid ah imaam Zaylac runtii ilaa maanta jaamacadaha kitaabka waa lagu darsaa sheekh Soomaaliyeed buu ahaa oo ka soo baxay magaalada la yiraahdo Zaylac rag badan oo taariikhda Soomaaliya wax ka qoray waxay leeyihiin magaalada Zaylac maanta hadii la qodi lahaa ama la baari lahaa waxa laga heli lahaa taariikh aad u badan ummadda Soomaaliyeed dawladihii Soomaaliya kala dambeeyeen si ula kacbay u diideen magaalada in la qodo ama wax laga baaro maxaa yeelay turaadkii ama taariikhdii ummadda toosa laga helaya nin Suudaani ah oo Maxamed la yiraahdo Makki oo kitaab la yiraahdo Soomaali weyn qoray waxa uu leeyahay hadii dawlad Soomaaliyeed la heli lahaa oo magaalada Zaylac waqti ku bixisa مخطوطات أما كتبتي قعنت لجو قري تاريخ الصومالي أو وحلاقة لها ودقات وفربض المجال إلى هذا وحال الشجع المجال زي العدد كتجي إن أذكر عنا يسجريه هوست كدسن أو مركز كدول صعة شنقرية مسجد لن أو أسمي أو بعد كدوش كاميرا لجودل صعنية اسميو ولي جرا أو بعد كدوش كاميرا مركز رنتي زيلع يا مروحي أهيد منبر كجيس كأفريقيا دعوة الله في ديو كدب ويكوريكتي بقرطويدي أو وحيوريكتي مجالة اللي هذا هرر إمارة الإسلامية في هرر يا مركي قدام بيسي وحكوس أورور صدق حكم قدام بي إسلامي أمد الصوماليات أما مسلمين تجيس كأفريقيا وأهي الدولة بقرطويدي هلك كجرت مدينة هرر وحلوق يا سائلة صدح بقوله سنة وحليلة إني جرتي أوي كلا دحلان إلى صدن يشن أمير أما بقر أيو كلا دنبيين إمارة أيضا وحيد عضي كن سداد بقول سداتني يتضبدي وأن جعل تاريخ أنا الحفيدان قف كستوى كن سداد بقول سداتني يتضبدي